qabiil nacaybku ama qabyaalada waa nidaam bulsho iyo siyaasadeed oo si qoto dheer ugu xididaysan bulshada Soomaaliyeed kaas oo daacadnimada qabiilka iyo qabiil hoosaadyada ka hormariyo midnimada qaranka. taariikh ahaan qabaa'ilku waxay bixin jireen ammaan aqoonsi iyo taageero wadaag ah marka ay maqan tahay dowlad dhexe oo xooggan taas oo ahayd mid muhiim ah bulshada reer miyi ah. si kastaba ha ahaatee xilligan casriga ah nidaamkani wuxuu noqday caqabad weyn oo hor istaagta dhismaha dowladnimada, midnimada qaranka, horumarka bulshada iyo dhaqaalaha, isagoo dhaawacay hay'adaha dowladda, kordhiyay sinaan la'aanta oo ka hor istaagay samaynta aqoonsi qaran oo midaysan. kala qaybsanaanta qabiilka ee qoto dheer ayaa door muhiim ah ka ciyaartay hurinta dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya kaas oo bilowday kadib burburkii dowladii Siyaad Barre ee 1991kii. taliskii Barre inkasta oo uu markii hore isku dayay inuu xakameeyo qabiilnimada isagoo mamnuucaya qabiilka oo kor u qaadaya aqoonsiga qaranka, ugu dambeyntii wuxuu ku tiirsanaa qabiilkiisa iyo qabaa'il xulaf ah taas oo horseeday soo ifbixidda kooxo hubaysan oo qabiil ku dhistaan. burburkii dowladii dhexe wuxuu horseeday firaaq awoodeed iyo dagaallo baahsan oo dhex maray maleeshiyooyin qabiil ku dhistaan iyo hogaamiye kooxeedyo. dhacdadii caanka ahayd ee Black Hawk Down ee 1993kii oo ahayd iska horimaad dhex maray maleeshiyooyinka Soomaalida iyo ciidamada qaramada midoobay waxay sii muujisay fowdada iyo kala qaybsanaanta colaadda. cawaaqibka ka dhashay qabyaalada ee Soomaaliya waa kuwo aad u daran oo dhinacyo badan leh. dalku waxa uu la daalaa dhacay rabshado aan dhammaad lahayn, macaluulo soo noqnoqda sida kii 2 Eber 1 iyo barakaca malaayiin qof oo ay ku jiraan budhcad badeeda xeebaha ah. burburka dhaqaale waa mid baahsan iyadoo daacadnimada qabiilku ay inta badan go'aamiso helitaanka agabka lagama maarmaanka ah, waxbarashada iyo fursadaha shaqo, taas oo sii hurisa sinaan la'aanta iyo dhibaatooyinka qabiilooyinka la takooro. kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab ayaa ka faa'iidaystay kala qaybsanaanta qabiilka iyagoo la gorgortamaya qaab dhismeedyada qabiilka si ay u qortaan xubno cusub oo ay u xukumaan dekedo, taas oo sii hurisa wareegga colaadda. Soomaaliya waxaa 10 sano lagu tilmaamayay dowlad fashilantay sababo la xiriira maqnaanshaha joogtada ah ee dowlad dhexe oo xooggan iyo awoodda ay leeyihiin daacadnimada qabiilka. si looga gudbo caqabadahan qoto dheer, Soomaaliya waa in ay ka guurtaan nidaamka mudnaanta siinaya daacadnimada qabiilka oo ay beddelkeeda qaadato mid qiimeeya kartida iyo ballanqaadka horumarka qaranka. tani waxay u baahan tahay hoggaan aragti dheer leh, dib u habeyn ballaadan oo hay'adaha ah iyo ballanqaad wadajir ah oo ka yimaada dhammaan Soomaalida si ay u mudnaan siiyaan midnimada qaranka. dhisidda aqoonsi qaran oo wadaag ah, xoojinta hay'adaha, xoojinta waxbarashada diiradda saaraysa midnimada, dhiirigelinta dib u heshiisiinta, iyo tallaabooyinka ku aadan cadaalad iyo sinaan ayaa ah tallaabooyin muhiim ah oo loo qaadayo dhinaca mustaqbal nabad ah iyo barwaaqo, halkaas oo qabiilka la ixtiraamo laakiin aanu go'aamin fursadaha ama daacadnimada dowladda.